laga soo bilaabo 15 May kadib markii ay Xuutiyiintu weerar ku qaadeen dhuumo naaftada qaada iyo goobo laga soo saaray naaftada oo ku yaala dalka Sacuudi Arabiya waxa soo baxaya sawirro muujinaya qaabka ay u dhaceen weerarkaasi iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay geysteen. Sawirradani oo qayb ka mid ah u helay kanaalka Al Jazeera ayaa waxa ay muujinayaan naafta badan oo qubanaysa isla mar ahaantaasina ay dhaawacyo soo gaadheen goobaha laga soo saaro naaftada. Gaar ahaan sawirrada la helay waxa ay muujinayaan duqeyntii loo geystay goobta 8aad ee Aram oo ah shirkadda gacanta ku haysa wax soo saarka naaftada ee Sacuudiga isla mar ahaantaasina laga leeyahay isla gudaha Sacuudiga. Xuutiyiinta ayaa hore u sheegay in weerar noocan oo kala qaadi doonaan balse goor dambe ka dhabeeyay laga soo bilaabo 15 May oo ay qaadeen weerar xidhiidha kuwaas oo ay fuliyeen diyaaradaha iswada ee aan duuliyaha lahayn taasi oo aan la garanaynin cid Xuutiyiinta siisay iyo halka ay ka keeneen balse dadka eedaya ay sheegayaan in Xuutiyiintu ka heleen dawladda Iran. Tani ayaa imanaysa kadib markii uu xumaaday xaalka u dhexeeya dawladaha Iran, Mareykanka iyo Sacuudi Arabiya. taasina waxa ay keentay in Sacuudi Arabiya iyo Mareykanka oo isgarabsanaya ay Iran ku tilmaamaan inay tahay argagixiso isla mar ahaantaasina uu bishii la soo dhaafay Mareykanka qoonsaday ciidamada kacaanka ilaalada dawladda Islaamiga ee Iran argagixiso. Maalmo kadibna ay Iran u aqoonsatay ciidamada Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe argagixiso iyadoo sheegtay inay bartilmaameedsan doonto isla mar ahaantaasina ay ku qaadi doonto weeraro aan la mahadinin. Waxaana ay taasi keentay in ay Xuutiyiintu laabaan weerarada ay ku hayaan dawladda Sacuudi Arabiya iyo dalka Imaaraadka Carabta oo isgarabsanaya kana dagaalamaya gudaha Yemen isla mar ahaantaasina dagaal xoogan ku haya kooxda Xuutiyiinta ee haysata qaybo ka mid ah dalkaas Yemen oo ay ka mid yihiin caasimadda dalka Yemen ee Sanca. Sacuudiga ayaa sheegay in aanu dul qaadan doonin weerarada noocan ah oo ka hortagi doono. Sawirradu sidoo kale waxa ay muujinayaan iyada oo la qaaday 15 May subaxnimadii in naafta badani ay khasaare soo gaadhay isla mar ahaantaasina ay dhaawacyo xoogan ka muuqdaan taasi oo burburku gaadhsiisan yahay tiro u dhaxaysa 1 mitir ilaa 15 mitir oo laaban isla mar ahaantaasina waxa ay sawirradu tilmaamayaan dhismaha uu ku fadhiyo beedka goobta wax soo saarka ee Aramco 8 taasi oo ay warbixintu ku tilmaamtay 110,000 oo mitir isla mar ahaantaasina isku weera. Waxaana ay sheegtay in qaybo badan oo kamid ah halkaasi uu soo gaadhay dhaawaco. Waxa sidoo kale warbixintu intaasi ku daraysaa in ay soo gaadheen dhaawac dhuumaha shidaalka qaada iyo goobo kamid ah qaybo wax soo saarka. Dhaawaca ugu xooganna waxa uu soo gaadhay Aramco 8 oo ahaa dhismihii aynu ka soo faaloonay. Tani ayaa imanaysa xilli ay cirka isku sii shareerayso xiisada ka dhaxaysa dawladaha Iran iyo sidoo kale Mareykanka iyo Sacuudi Arabiya oo isgarabsanaya. Waxaana Mareykanku ku baaqay inaanay u diyaar ahayn dagaalka dhaca gacanka Khaliijka Carabta iyo guud ahaan gobolka Bariga Dhexe. Yunis Cabdiraxmaan, Horyaal TV.